baxdo waa magaalo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha dalkeena Soomaaliya waxay 90 kiiloomitir dhinaca bari ka xigtaa degmada Cadaado ee gobolka galgaduud 17 Juun ayay argagixisadu ku qaadeen weerar aysan mahadin oo looga dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad gaadhaya ilaa 72 isla markaana waxa looga qabsaday maxaabiis iyo saanad ciidan waxaana laga fashiliyay qarax gaadhi oo ay ku soo rareen kaasi oo noociisu ahaa Land Cruiser ama Leyla Calaawi qofka sida uu yaqaano baxdo waa magaalo aad u ballaaran isla markaana waxay marin isku xidha u tahay deegaano iyo degmooyin kala duwan oo ka kala tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud qofkii maqlay baxdo dagaal baa ka dhacay isla markaana aan joogin goobta waxa uu sawiranayay inay noqotay goob laga qaxay balse taasi ma ahayn meeshan soo arkay magaalo shaqaynaysa oo ay furan yihiin dukaamada iyo goobaha ganacsiga bulshaduna ay yihiin kuwa degan kadib guushii ay gaadheen waxay keentay in isla maalintii xigtay ardaydii wax ku baranaysay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee magaalada baxdo ay u fadhiistaan imtixaankii shahaadiga bulshada iyo ciidankuna ay si nabada ugu wada shaaheeyaan makhaayadaha magaalada baxdo kani waa masaajidka ugu weyn magaalada baxdo argagixisadu waxay la dhaceen wax kastoo ay awoodeen oo hub ah meel kastoo aad ka istaagto masaajidka waxa ku yaala gunjubka rasaastii ay la dhaceen argagixisadu tani ayaa caddayn u ah inaanay argagixisadu rabin wax diina maadaama laga celcelinayo beydkii ilaahay maxay tahay ujeedka dhabta ee ciidanka u abaabulan habka deegaanku ay ula dagaalayaan argagixisada khawarijta ah oo dalka Soomaaliya aan fadhiyay baa waxa uu soo ataagay deegaanka soo ataagay qorga marka waxaan u qaadanay in maadaama markaan ogaanay anagu aan raadinay inay duulaan ku yihiin diinta islaamka hadda masaajidkan u jeedaa waxa weeye waxa ku taala 500 xabadood nooc qoray la rido oo ku dhacay isku dhifan laba waxaan markaan ogaanay beydka ilaahay inaan ka difaacno iyo dadka culimada oo behelka u ah iyo dadka shacabka oo dalka ku nool inta anagu aan ka gaarno inaan ka difaacno baan qor u qaadnay door nooceeya ayay culimada magaalada baxda ku leeyihiin dagaalka ka dhanka argagixisada al-shabaab waxaa kalifay in meeshaan culimadu iyo bulshadeeda degmada la baxdo inay is abaabulaan muddo badan oo aad u fara badan ayay waxay sameeyeen kasoo wacaan deegaanka yiraahdaan waxyaalahaas sida annaga aan dareemayno inay ilaahay waxyaalaha aan ku dhawaanayno sida dikriga oo kale iyo maaragtay iyo رفض الدميو ماذا المقاصد والمتهددين كدمنا علماء وحي قام قاطي gudoomiye ku-xigeenka magaalada baxdo Axmed Salaas Sheekh Dheere oo aan kula kulmay gudaha magaalada ayaa iiga warbixiyay xaaladda magaalada isla markaana ka dhawaajiyay inay ka shacab ahaan fahmeen dagaalka argagixisada meeshan dadka shacabka waxay fahmeen nimankan waxay inaan la arag sax cayayaan yani buufin u baahan inay yihiin fahmeen sax wayna fahamsiin culimadana fahamsiisay in badan wax baqatin ay ka qabaan ma jirto wayna ogaadeen in la iska cili karo Soomaaliya oo dhan waxyaabaha diilay ku reeyay meeshan waxa ka dhacay ee ku xibra qaadan karta ama qofkii la dagaalamay meel kasta oo qof hadii la ku reeyay ku dhawaatay soo nimankaas duuleystaan u joogo waxaan kula daarmayaa waxay inaysan jirin in iska celshaan annagana tusnay awal dad hore la dagaalanay way jiraan